gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha hay'adda cunnada adduunka oo qaabilsan Soomaaliya. Muhiimadda ugu weyn ee kulankan ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay xoojinta wada shaqaynta xafiiska WFP Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Sidoo kale qodobadii ugu muhiimsana oo ay mas'uuliyiinta ka wada hadleen ayaa waxa ka mid ahaa sidii gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah loo gaarsiin lahaa kumanaanka barakacayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasi oo ka kala yimid gobolada dalka ee colaadaha iyo abaaraha saameynta ku yeesheen. Agaasimaha hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayaa sheegay in gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiintiisa uu kaga mahad celinayo sida wacan ay xafiiska maamulka gobolka Banaadir ugu soo dhaweeyeen. I have come here today to the VRA office and I'm very glad and happy to actually have being able to meet you, Your Excellency, and the team. My team is all here supporting the efforts of stabilization of in Mogadishu and supporting the population, both the IDP population and the hosting population, as we have been doing for years. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ka sokow kulankan sheegay in kulankan uu ahmiyad weyn siinayo sidii loo dadajin lahaa caawinaadda dadka gargaarka u baahan ee ku dhaqan gobolka Banaadir. maamulka gobolka Banaadir iyo agaasimaha tiimkiisu ay ka wada hadleen sida ugu habboon oo dadka u baahan gargaarka WFP loo gaarsiin lahaa wixii hore loo gaarsiiyay iyo wixii qaladaad soo baxay sida loo sixi lahaa iyo qaybaha WFP ay gargaarto iyo qayb walba sidii ugu habboon oo ay ku heli lahayn gargaarkeeda. waxyaabahaas ayaa laga hadlay si wanaagsan ayaan la isula maalgay. Maxamed Cali Waheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.